مشرح اللي بان دكتور عبد الولي قاسم جابو وكمد مشرحين تأوتاً كمن نقشها كراسة أقل كبرلمان كدولة فيدرالك الصوماليا أي سو جاري مقالة كيسمايو عاصمة كوميلجاركا دولة جولات كجبلان سو دوينت مشرحة أي وحى كقيب قاتي لمان أررد بلشد الريد كقيبه ذاك الدون سدا أقون يهندا وضياش الدقنكا أررك هوينك إيه أررك دلينيرد كيسمايو آدي يا آد سي فرحض له oo niyad sami leh oo qadarin leh ayaan waxaan u soo dhaweynaynaa walaalkay Cabdi Wali Qaasim Gaabo oo aanu u rabno insha Allah inuu noqdo kuna soo baxo xildhibaanka federaalka degmada Afmadow iyo degmooyinka Jubbaland waxaan rajaynaynaa in ma garanaysaay nin u qalma kana bixi kara in aad noqoto sidaas ayaan ka rajaynaynaa waxaan kugula dardaarmaynaa ma taqaanaay xildhibaano badan oo adiga ka horeeyay oo waxa jira sidii looga doortay deegaankan ay uga baxeen ana dib u arag ma garanaysaay inaadan wadadoodii marin marka labaad sida dadkaasi ay ku soo dhaweeyeen ee hamiga quruxda badan iyo soo dhaweynta ay ku suubiyeen umbaa mar walba hadaad xilka qabatid lagu garab taagan yahay xildhibaan soo dhawow garabkaaganu taaganahay habeen iyo maalin garabkaaganu taaganahay soo dhawow دكتور عبد الولي قاسم جابو oo مشرح ololamaya helida kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo uu ku matali doono degmada Afmadow ayaa u mahad celiyay dadkii ku soo dhaweeyay gegada diyaaradaha Sayid Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo isagoo ugu baaqay dhammaan reer Jubbaland in ay ka taliyaan midnimada iyo nabad waarto waxaan aaminsanahay in la gaaray xilli dadku ay bisil yihiin diyaarna u yihiin inay xuquuqdooda raadsadaan inta kadib waxaan u mahad celinayaa maamulka Jubbaland ee noo ogolaaday musharaxiinta dhammaan u ogolaaday inay campaign-kooda galaan oo ay ma taqaanaa doorashadooda ay dadka la hadlaan taageerayaashooda la hadlaan aad baan ugu faraxsanahay aadna waan uga mahad celinaynaa inta kadib waxaan rabaa inaan idin kula dardaarmo hadaatiin bulshada Jubbaland inaad ka shaqeysaan isku duubnida midnimada iyo wadajirka waad ogtiin xilliyadii adkaa ee la soo maray dhibaatooyinkii Jubbaland laga soo maray wixii loo soo maray dhulkan waad la socotaan waxa loo baahan yahay inaad adkeysaan midnimada inaad amniga ka wada shaqeysaan inaad wadajirka ka shaqeysaan inaad isku soo dhaweysaan waliba odayaasha waxaan ka codsanayaa inay dhammaan bulshada kala duwan ee Jubbaland isku soo dhaweeyaan Abdullahi Maxamed Sheekh Jubbaland TV Kismaayo